gudoomiye aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo agaasimaha waaxda caafimaadka casumaadda aad noo samayseen oo meeshaan aan ku kala tala qaadanaynay oo aan isdhaafsanaynay wixii marxaladda maanta la marayo oo COVID-19 cudurkan coronavirus-ka ah la dagaalankiisa sidii annagoo ururka takhaatiirta Soomaaliyeed ah iyo gobolkeena oo Banaadir sida aan annagoo wada jir aan ula dagaalami lahayn arrintii waa iska aragnay gudoomiyaha iyo agaasimaha waxaan ku wada isku afgaranay arrintan sida aan uga wada shaqayn lahayn tababar wacyigelin sida aan u xoojin lahayn ilaahay nagu riday haddii مثلا بأي دعوة عذر كاسيتو ودن كسوقله عافمات كيس سيدي أن أوجه لهن سيدي أن أوجه تجي لهن أو تذكر أن بتبادل لهن سفي عم بي نوع دماتي إسبيدار سيجتلوين كأسمينيني قابته حاجة سوق قبقري صاحب بدي برسول فوجي يو دكتور جوليد راين جوليد oo ah xoghayaha guud fujo ama taqaanaa ninka aan u dooranay inuu noo noqdo gudoomiyaha ka hortagga guddiga ka hortagga oo maxay ahayd cudurkan COVID-19 wada shaqayn wacan waana wada shaqaynaynaa insha Allah waxyaalo kale weli badanna waa noo hareen oo runta kala durugsanaanta la xiriirta isku socodka dadka la xiriira isdhexgalka dadka la xiriira annagu dhaqan ahaan uma lihin Soomaali haddaan nahay dhaqankeenu dhaqan ma ahanba u samaysan wixii alle wixii hawada ku gudbahaya ama taabasho ku gudbahaya uma samaysan taxadirkaas ma ayno marka waa garan karaa marka tira dadka dhaqankaad u dhaqantaan bedela wax sahlan maaha haddana ma aha inaan rajo beelno waa inaanu xoojino sida kaliya ku suurtagalisaan waxay noqonaysaa in hay-adaha dhan oo qaranka ka jira ay u soo jeestaan maanta covid miidiyadu ay waliba ugu horeyso adduunka ilaahay miidiyada maanta gudoomiye daafurtay haddaan BBC furno ama Al Jazeera furno ama CNN furno waxaan covid ahayn oo laga hadlayo coronavirus kaas laga wada dhahay annagana waa inaanu sidaas oo kale aanu istaagno culamo haddaan nahay iyo caamaha haddaan nahay madax haddaan nahay garab rarta haddaan nahay waa wax arrin u baahan in aan gacanta iska qabsano waa aragteen adduunkii waa dhamaanaya wuxuu ku dhamaanaya viruskaas ilma qabatada ah ayuu ku dhamaanaya qoloba marka tactica ayay la timaado istiraatiijiyad samaysataa istiraatiijiyadeenu annaga waxa weeye wacyigelinta aan xoog ka saarno una diyaar garowno wixii soo baxa aanu daaweyno xakamayno oo baarno oo markaas wax ka qaban anagu ujeedaduna waa intaas alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maanta oo ah 1 Abriil waxaa xafiiska noogu yimid dhaqaatiirta guddiga dhaqaatiirta Soomaaliyeed gudoomiyaha iyo gudoomiyaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed u qaabishan ka hortagga COVID-19 Dr. Fuje iyo Dr. Maxamed Yuusuf iyo dhaqaatiir kale waxaan aad iyo aad ugu dheeraanay talo isweydaarsi aqoon isweydaarsi la xiriira yani sidaan isaga kaashan lahayn dhibaatadan hadda ku cusub adduunka uu sababayo cudurkan coronavirus la leeyahay runtii dhaqaatiirtu talooyin badan oo wax ku ool ah ayay mataqaanaa nasiiyeen tiimkii gobolka Banaadir oo qaabashanaha caafimaadka oo ayaguna xiriirinayay ayaa macnaha talooyinka dhaqaatiirta wax badan ay ku beeriyeen iyo maamulka gobolkaba runtii iskaashi xilligan lagu jiro inuu laga maarmaan yahay ayaan istusaalaynay guud ahaan magaalada Muqdisho dadka ku nool waxay loogu baaqay oo dhaqaatiirta iyo maamulka gobolka ay ugu baaqeen inay talooyinka caafimaad mar walba dhaqaatiirta ay bixinayaan iyo digniinada iska soo daba dhacaya inay u dhagan nuglaadaan runtii horey ayaan uga hadalnay in bulshada kala fogaanta lagu dadaalo